الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعن شعبك الصومالي لو wadaagayna howlgallo ballaaran oo maalmaha ay ogaayeen inay ka socdeen dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle waxa maanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo xoogga wadaniga ah geesiyaasha ah oo hubaysan ay la wareegeen deegaanka qaayib waa tuulo aad u weyn oo maxkamadu ahayd al-shabaab oo ay dadka uga yeeri jireen gobolka mudug iyo gobolka galgaduud degmadaas iyo deegaankaas waxay burburiyeen ceelashii biyaha waxay barakiciyeen dadkii deganaa waxay gubeen oo ayadan dhulka dhigeen anteenadii hormuud oo dadku isgaarsiinta u adeegsan jiray howlgalkaas maanta dhacay waxa ka horeeyay howlgalladii ku xigay deegaanadii ka horeeyay ee laga soo sufeeyay cadawga sida deegaanka qalaanqal dhisiq shurufle dhuumoodle caliweyd meegaagduub iyo wixii la mid ah cadawgu ummadda Soomaaliyeed waxa maanta ku socda howlgal ballaaran oo iska kaabsanayaan shacabka Soomaaliyeed iyo dhalinyaradooda xoogooda hubaysan iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala dhawaan in guulo ballaaran laga gaaro sidaas oo kale gobolka Hiiraan waxa shalay ka dhacay dagaal wuxuuna ka dhacay tuulada deegaanka la yiraahdo Moore Eri iyo Qarfo waa laba deegaan oo ay cadawga shalay haysteen ilaa ay 6 xubnood oo cadawga ah lagu dilay ciidankeena nin kamid ah ku dhaawacmay ka ayagana guul baa laga gaaray waa deegaanka Moqorkori oo wadada u baxda dhanka Aadan Yabaal oo ay ugu tala galeen inaan xiriirka Aadan Yabaal iyo Moqorkori la kala jaro ama Hiiraan iyo Shabeellada dhexe in la kala gooyo halkaas guul aad u ballaaran baa laga soo gaaray dhanka Shabeellada dhexe howlgalladii ka socday ee burburinta jiidaha xoogan cadawga masaajid Cali Guduud duqayntii iyo burburintii baa ku socota jiidaha cadawga deegaankaas masaajid Cali Guduud waxay u tahay istaraatiiji cadawga waxayna doonayaan inay ka difaacaan galmudug iyo intay Hirshabeelle ka haystaan waana meeshii ay ka qaadan jireen canshuurta ee isugu xiri jirtay gobolka Banaadir gobolka Shabeellada dhexe iyo gobolka Galgaduud halkaas burburin xoog badan baa ku socota walina duqayntu way ku socotaa duqayntaasi waxa hogaaminayay ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka nabad sugidda Soomaaliyeed sida uu noogu sheegay horay wasiirka xogeenkeena wasaaradda warfaafinta